waa Colonel Douglas McGregor oo saacadii barka hor waraystay sheegana in dagaalka Mareykanku uu soo rogaal celinayo Iiraan wixii ka harayna digada laga dhigayo. xogtaas dib ayaan oga yeelan doonaa haddii Allah ugu daleeyado qodobada kale oo barnaamijka daawadayaal idinku haynana waxaa ka mid ah war ka soo baxay dowladda dalka Iiraan ayaa lagu sheegay in wada xaajoodkii curdanka ah inay burburaan qarka ay u saaran yihiin kadib markii mar kale waa sida Iiraan hadalka u dhigtay Donald Trump isbedel uu ku dhashay. ra'iisul wasaaraha Israa'iiliyiinta oo bartiisa Twitter-ka qoraal soo dhigay oo sheegay markaas in ay Trump ku heshiiyeen laba arrimood oo Iiraan midnaba aysan aqbalaynin oo gundhig u noqonaya sida la sheegay in wada xaajoodku ay burburaan. dhanka kalena daawadayaal xalayto sida aynu horey idinkugu soo gudbinay madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa wadamada Carabeed madaxdooda iyo kuwa muslimiinta oo Turkiga ku jirta khadka telefoonka group call kula hadlay sir callkaas laga helay ayaan barnaamijka idinkugu haynaa. aynu ku bilownay marka hore Donald Trump ayaa waxa lagu soo qaaday weerar afka ah kooxaha markaas aadka u taageera oo soo horjeeda in heshiis Iiraan lala gala ay ku soo qaadaan. head of communication-ka madaxa warfaafinta iyo waliba miidiyaha ee dowladda dalka Mareykanka Stephen Junk ayaa soo dhigay bartiisa Twitter-ka qoraalkan 47 daqiiqo ka hor xilliga barnaamijkan aynu duubayna asagoo u jawaabayay Mark Pompeo si wacan wada taqaanaan. waxa uuna sheegay Mark Pompeo inuusan haba yaraatee luqaddu ku hadlin oo iska arkaysaan luqaddu ku hadlay waa luqad qariban oo idinka raali gelinayna laakiin waxaan rabnaa inaad dareentaan xaaladdu meesha ay marayso oo warku idin soo gaaro. waxa uuna sheegay Mark Pompeo in uusan garanaynin waxa uu ka hadlayo isla mar ahaantaasna uu afkiisa stupidka ama nacaska uu xirto shaqadana uu u daayo khubarada iyo dadka markaas ayagu professionalka ee xogogaalka u ah. waxa uuna ka jawaabayaa Mark Pompeo marka uu yiri dagaalka iyo heshiiska Iiraan lala galay waa mid markaa madhalaysa oo aan markaas Iiraan kaliya u danaynayo oo Mareykanka first aan ahayn oo danaha Mareykanku bariga dhexe uu ka leeyahay aan u danaynaynin iyo arrimo kale oo fara badan oo waxa aynu muuqaalka idinkugu soo gudbinay. Donald Trump culays iyo cadaadis xad dhaaf ayaa waxa soo saaray xildhibaanada labada aqal gaar ahaan labada xisbi gaar ahaan xisbiga asaga uu ka tirsan yahay qaar ka mid ah oo aad iyo aad Israa'iil saaxiib ola ah iyo waliba AIPAC oo ayaga laftigooda qayb arrintan ka sida bartooda Twitter-ka ay u twitter-gareynayaan muuqaalada isdaba jooga ayna uga xun yihiin heshiiskan Iiraan hadda lala gelayo in ay markaas iyadoon hadafkii dagaalka la gaarinin uu Donald Trump oo markaas heshiiskan uu qaadanayo. marka weerar iyo culays ayaa lagu soo qaaday waxaadna arki doontaan maalmaha soo socda arrintaas oo cirka isku sii shareedha sida la sheegayo. waayahay haddaba daawadayaal halkan haddii aynu eegno dowladda dalka Iiraan ayaa sheegtay sida Reuters ay halkan tabinayso markaas in uu burburi karo heshiiskan haatan curdanka sababtuna ay tahay Donald Trump oo arrimaha masiiriga laga wada hadlayay isbaara u dhigtay. horey waxaynu aragnaa isagoo markii la wada xaajoodaba wixii lagu wada hadlo wax ka duwan haddana la imaanaya. haatan Iiraan waxay leedahay arrimaha masiiriga ee ay ka mid tahay hantida dowladda dalka Iiraan in loo soo daayo ee laga haysto lagu heshiiyey iyo arrimo kale oo markaas gundhig heshiiskan u ah inay dowladda dalka Mareykanku markaas ay sida lagu wada hadlay aysan u furanaynin sida Tasnim News Agency ay Reuters ka soo xigatay. oo waxa ay dowladda Mareykanku ay dowladda Iiraan ay leedahay arrintan in la kansalo wada xaajoodkan oo cawda loo jaro ayaaba qarka loo saaran yahay meesha u hooseysa haddii aad eegtaan qoraalkan oo xaaladdu ma fiicna. waayahay haddaba dhinaca kale sidaaynu halkan ka arkayno wakaaladda wararka ee New York Times ayaa waxa u warramay mas-uuliyiin markaas ka tirsan dowladda dalka Mareykanka oo sheegay wada xaajoodka Mareykanka iyo Iiraan u dhaxeeya in ay gundhig u tahay laba qodob oo keliya. labadan qodob dib ayaan oga imaan doonaa iyo Netanyahu iyo garo. waxa ay sheegeen markaas in Iiraan ay soo dhiibto uraniumkeeda ay tayeysay isla mar ahaantaasna Strait of Hormuz ay furto. waxaan rabnaa daawadayaal arrintan inaanu si fiican u fahanno. Strait of Hormuz waa la furayaa ayuu Trump Twitterkiisaan idiin soo gudbinay uu ku qoray ama bartiisa
true socialka la yiraahdo laakiin marnaba ma uusan sheegin in xal la furay cidda mas'uuliyaddeeda haynaysa iiraan waxay leedahay waa la furayaa waa ku waafaqsanahay Trump mas'uuliyadda annaga ayaa iskale oo hormuus ka talinayna cid kale oo ka talin kartaana ma jirto arrintaas waa taas Trumpna waa og yahay warkaas ayaa la leeyahay oo Iiraan ayaa mafaatiixda loogaga tegayaa shalay iyadoon haysanin ayay dagaalku bilowday Trump ayaa mas'uuliyaddaas qaadaya oo caalamka oo dhan uu ka soo horjeedo in Iiraan ay hormuus ka taliso oo markii ay rabto ama wax lagu xumeeyo ama wixii lagula ballamay Iiraan loogaga baxo ay mafaatiixda hormuus ay markaa jeebada gashato ay tiraahdo cidu mari mayso taasi waa midda labaad uraniumka ay tayeysay la soo dhiibo waa arrinta Iiraan ay diiday ay tiri waa habeenkii xalay ah tagay weeye arrintaas inaynu dhiibno waa hanti qaranka Iiraan uu leeyahay balaayiin lacag ayaa naga gashay inaanu halkaas soo gaarsiino aynu tayeeno dhiibi mayno labadaa arrimood ayaa gundhig heshiiska u ah oo Donald Trump waxa uu rabaa in aysan Iiraan uraniumkaas aysan haysanin waxaana u dheer intaas in laga saxiixa Iiraan inaysan weligeed aysan yeelan doonin nuclear ka wax gumaada waxaan kugu hayaa barnaamijkan madaxweynaha dalka Iiraan Mas'uud Pezeshkian oo goor dhow hadlay oo aanu idiin hayna hadalkiisa wuxuu arrintan ka yiri waa yahay haddaba halkan ila eeg daawadayaal warbixintan ay wakaaladda wararka ee Donald Trump aadka ugu dhow ee wararkiisa baahisa dhinaca midigta ee xad-dhaafkana u janjeedha ee Fox News la yiraahdo ayaa waxa ay tabisay warkan waxa ayna sheegtay Mareykanku inuu u ogolaaday aan ka qaado qoraalkan yar iyo kaadado aad iyo aad u mahadsan Mareykanku inuu u ogolaaday markaas inuu Iiraan cunaqabataynta uu ka qaado oo markaa cadu weyn Iiraan loo gooyo arrintan Iiraan maxay ogaga dhigan tahay haddii ay dhamowdo inta aanan arrintaas eegin waxaan daawada u baahanahay waxaan u rabnaa inaanu fahanno Iiraan hormuus in ay ogolaato maraakiibtu inay maraan bilaash ma aha uraniumkeeda oo gorgortan ay ka gasho iyo wada xaajood oo albaabadeeda ay furto Iiraan inay wax weyn ku bedelato ayay rabtaa haddii ay dhacdo marka cunaqabataynta oo dhan oo laba nooc ah primary iyo secondary-ga labadaba in laga qaado ayay Iiraan rabtaa hantideedana loo soo daayay balaayiinta lacagta waxaa laga hadlayaa 25,000 oo bilyan wararka qaarna waxay gaarsiinayaan 200 oo bilyan and I think waqtigaas inay aad u badan tahay laakiin 25 bilyan ba aynu ku ekeysano Donald Trump wuxuu diyaar u yahay arrintaas in uu markaa fuliyo laakiin agreementigaas waxa gundhig u ah arrinta Iiraan aysan yeelaynin oo ah inay markaas uraniumkeeda materialkeeda oo dhan ay dhiibto oo dalkooda laga dhoofiyo oo sidii hadda ka hor ku dhacday markii Sovietka la burburiyay sidaas oo kale markaa uraniumkii laga qaaday oo la geeyay yaalay dalka la yiraahdo Kazakhstan markaa meesha magaceeda dalka magaciisa laga qaaday oo Mareykanka la geeyay sidaas oo kale in loo sameeyo ay doonayaan arrintaasna Iiraan ma ogola marka wada xaajoodkaanu amuuba yahay sida Colonel Douglas McGregor uu qabo arrin iska maqaar saar iyo maaweelin ah oo Iiraan loogu duur xulayo sidii loo soo weerari lahaa oo la rabo in caalamka la tuso Trump inuu wax walba sameeyay waxna aan laga qaban karaynin maya arrintu saas ma ahane Iiraan inay uraniumkeeda iyadu ay markaas ay baraxdo oo la daciifiyo oo caalamkuna uu markhaati ka noqdo ayaa la doonayaa sidaasna Trumpna uu ku qanco yiraahdo Obama meeshiisii meel ka fiican ayaan geeyey Iiraanna ay tiraahdo waxayni annaga ayaa gacanteena ku habaynay caalamka oo noo jeeda sidaasna heshiiskan uu ku hirgalo waa seef laba af leh meesheeda ayaan ugu imaan doonaa intaana Colonel Douglas McGregor kuu soo dayn daawada meel kastoo dunida ka joogtaan bal warbixintaan isla dhageysano And so I do think there's some good news on that front, but not final news on that front. Stronger still from President Trump posting an agreement has largely been negotiated. Final aspects and details of the deal are currently being discussed and will be announced shortly. In addition to many other elements of the agreement, the Strait of Hormuz will be opened. But this afternoon... waayahay Strait of Hormuz will be open laakiin Donald Trump marnaba ma uusan sheeginin meesha Strait of Hormuz marka la furo cidda maamulaysa Iiraan
arrintaas biyo kama dhibcanaya u tahay waayahay arrimaha kale ee muhiimadda gaarkaa leh ee u baahan inaynu dul istaagno daawadayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Iiraan Mas'uud Pezeshkian oo asaga laftigiisu ka hadlay arrimaha dowladda dalka Iiraan iyo uraniumkeeda hadalkiisa si fiican u dhuuxo waxa uu leeyahay annagu uranium inaanu samaysano ma doonayna caalam kale inuu marag ka noqdo ayaan rabnaa cidda gobolka qalalaasaha xasilooni darrada iyo dhibaatada ka wadana annagu haddaan nahay Iiraan ma ahan annaga waxa uu leeyahay waa xukuumadda Israa'iil weeye waa kan Cabbaad Maxamuud waa kan Mas'uud Pezeshkian oo ka hadlaya 30-day period. But a senior Iranian official today said Iran would continue to manage the strait, calling that its legal right. We are ready to assure the world that we're not seeking nuclear weapons. We're not seeking instability in the region. The source of the instability in the region is Israel. Certainly, we and those participating in the negotiations will in no way compromise on the country's dignity and honor. waxa uu kale uu sheegay in ay wada xaajoodka aysan ku jiraan macnaheedu aysan ka dhignayn in ay gorgortan ka gelayaan madax bannaanida gobonnimada dalka Iiraan iyo dadkeeda marnaba gorgortan kama galayno oo ujeedada hadalkiisu waa maxay sidaad maqlayseen ninka warka tabinaya sidoo kale waxa uu sheegay Iiraan Hormuz inay ogaga dhigan tahay Iiraan inay u aragtay Hormuz meel ay iyadoo ay leedahay xaqeeda iyo xuquuqdeedana ah sidaas awgeedna aysan gorgortan ka galaynin waayahay haddaba Colonel Douglas McGregor maxay uu arrintan ka yiri xaaladdu xagee ayay maraysaa Iiraan ma lagu soo duuli doonaa mise lagu soo duuli maayo meesha arrintu ay u dhimato waa halkaas weeye dad fara badan waxay aaminsan yihiin oo madaxda muslimiinta iyo wadamada carabeed ah inaan dagaalkan uu gabagaboobay Donald Trump uusan rabin inuu dagaal soo rogaal geliyo Professor caanka ee John Mearsheimer ayaa waxa uu qabaa fikirkaas oo kale oo uu aaminsan yahay Trump dagaal ma rabo laakiin Trump waa nin power steering ah oo geerar fara badan ay galaan haba dhinac la rabo loo wareejin karo loo wadi karo waxaana ku soo socda markaas midterm electionkii sidoo oo kale ra'iisul wasaare Netanyahu ayaa waxa ku soo socda doorashadii October ku soo socota dagaalkana haba yaraatee wax natiijo ah oo la taaban karo oo ku saabsan wixii hortabinta u lahaa ma jirto wax kan channel 4 oo naareed garaynaya ka waramaya dhageyso iyo waliba waxa Netanyahu bartiisa Twitter-ka uu ku soo qoray labada qodob ee xagal daacinaya wada xaajoodkan haddii ay suurto galaan sida Netanyahu uu sheegay waa kan Another man facing elections this year, Benjamin Netanyahu, for whom the outcome of a war he's so long campaigned for is even more critical. Today, he posted on X that he and President Trump agreed that any final agreement with Iran must eliminate the nuclear danger. Netanyahu dagaalka Iran ka dhanay muddada dheer uu campaign gareynaya maanta maalin ay ogaga daran tahay ma jirto. October 7 baa dhacday oo weerarkii ugu aanaylaade dhimashadii ugu badnayd oo dad Juusha dagaalkii labaad ee adduunka wixii ka dambeeyay lagu sameeyay ayaa dhacday isagoo xilka haya musuq ayuu wajahayaa iyo maxkamad dagaalkii Iran labadii jeer lagu qaaday natiijadii la rabay lagama gaarinin marka maanta maalin uga darantahay ma lahan bartiisa Twitter-ka wuxuu soo dhigay asaga iyo madaxweyne Trump code and code inay ku heshiiyeen Iran nuclear-keeda in laga qaado oo markaas ay tayeysay in la baabi'iyo elimination lagu sameeyo horey wuxuu u yiri waxa aan rabaa Iran oo aan ku qancaya mar la weydiiyay nabihii dalka Libya in la mariyo Libya Qadaafi waxa uu sameeyay ayaa la yiri khaladkii ugu weynaa kadib markuu albaabada u furay wadamadii reer galbeedka oo aaminay uu yiri nuclear-keega soo baara waa ka takhalusaya markii nuclear-kiisii la burburiyay silmiga ahaa ee dadkiisa iyo dalkiisu ay manafacsanayeen wixii Libya ku dhacay maanta meeshay marayso waa ogtiin Iran waxa jiifkii joogka u diidayna arrintaas ayaa ka mid ah Netanyahu wuxuu yiri waa in digada laga dhigaa oo elimination lagu sameeyaa paragraph-ka kan ka hooseeya haddii aad eegtid waxa uu leeyahay madaxweyne Trump waxa uu sidoo kale ii xaqiijiyay Israa'iil inay xaq u leedahay inay isdifaacdo meel kasta oo habay ah wax cabsi ah ama amni darra ay ka wajahdo oo ay ka mid tahay Lebanon
intaas ayaaba kugu filan saaxiib oo heshiiskan waxaa gudhig u ah oo qayb weyn ka ah dagaalka Lebnaan in la joojiyo Netanyahu waxa uu leeyahay xisbul cabsi haddii aynu dareenno oo Lebnaan ay ka mid tahay inaanu weerarno macnaheedu waxa weeye warqad ahaan waxaa la saxiixayaa in dagaalka la joojinayo laakiin Israa'iil haddii ay tiraahdo waxaanu xog ku helnay Hezbollah inay halis nugu yihiin weerarkaas uu socdo oo aan la joojinin dagaalkii waa socdaa heshiiskiina waa burburayaa dib ayaa dib loogu soo noqonayaa dagaalkii macnaheedu ma ahan Israa'iil inaysan isdifaacin ay tahay su'aashu waxa ay tahay aamin ma laga noqon karaa in ay Lebnaan iyo iyagu ay isdaayaan Israa'iilna aysan marmarsiye aysan keeninin ay Lebnaan ku weerarto oo dagaalku uu ku sii socdo daadi su'aasha ay khubaradu isweydiinaysaa dhinaca aad ka eegtin oo Cornel Douglas McGregor ka mid yahayna waxa uu leeyahay Netanyahu lama aamini karo oo dagaalku inuu socdo asaga badbaadadiisa ayaa ku jirto incentive ayaa ugu jira waxaa fikirkaas qaba oo kale Max Blumenthal ninka la yiraahdo oo asagu asal ahaan nin Jewish ah Mareykanna dagaalkana aad iyo aad uga soo horjeeda waxa kale oo fikirkaas qaba wariyaha caanka ee jaridda Herald u soo warrama ee 40 sano u soo warramayay intaas oo bilad sharafna lagu siiyay hawshiisa wariyanimo iyo artikalada uu qoray iyo wararka uu tabiyo oo magaciisa la yiraahdo Gideon Libby waxa kale oo qaba nin kale oo asaga laftigiisu Jewish ah Ingiriisna ah isla mar ahaantaasna muddo dheer ka soo shaqeynayay Israa'iil oo 1993 Oslo Accord Israa'iil ku matalayay oo asaga laftigiisa la yiraahdo Gideon intaas oo ragoo idin sheegay waxay qabaan ninka Netanyahu la yiraahdo in aan la aamini karin wase ayagu hadalka u dhigeen garo labadan qodob oo kaliya dagaal wada xaajoodkan inuu xagal daaco ayaa u badan tahay ayaa la leeyahay haddaba waa kan Cornel Douglas McGregor oo arinta ka hadlaya aynu isla dhageysano muxuu yiri Cornel Douglas McGregor ayaa waxa uu sheegay Israa'iil in ay Netanyahu raalaho Donald Trump in uu dagaalka soo rogaal celinaya inay muuqato shakina uusan Cornelkan uga jirin waa kan on Donald Trump to resume the war, to restart it, to once again begin the process of trying to destroy what is left of Iran and the state and its society is overwhelming. So I don't see how he can back off. It doesn't make any difference what the Crown Prince of Saudi Arabia or anybody else tells him. It's the understanding that if he doesn't go forward and he disengages, Israel may very well go out of existence. Okay, xog aad iyo aad culus ayuu soo saaray waxa uu yiri ma muuqato Donald Trump sabab uusan dagaalkan u qaadinin oo ku gowracan yahay inuu qaado waxa Mohammed bin Salman iyo madaxweynaha Turkiga iyo Qatar iyo ay u sheegayaan dagaalka qaadin waa ku hambalyeynayna dagaalkii waa joojisay hogaamiye fiican baa tahay tahriisha lagu rusheynaya amaanta ah waxa suma kala jecel haddii uusan dagaalka qaadanin Israa'iil ayaa xariis galaysa Netanyahu waxa uu leeyahay Iran inta ay haysato gantaalana soo gaara awoodna ay u leedahay inay uraniumka ay tayeyso ammaankeenu halis ayuu ku jiraa Donald Trump waa meesha ay arintu ay markaas uusan ka baxsan karinin ayuu Cornel ku qabaa inuu dagaalka qaado oo ku gowracan yahay Cornelka hadalkiisa halkaa noo dhig arrin kale oo weyn oo muhiim ah ayaan kula wadaagaya waxaan idiin soo bandhignay in markaas dowladda dalka madaxweynaha Mareykanku uu xalay khadka telefoonka kula hadlay amiirka Qatar wiilka dhaxalka boqortooyada Sacuudiga leh King of Bahrain Masar madaxweynaha Masar dowladda dalka Turkiga madaxweynaheeda iyo waliba inuu la hadlay taliyaha guud ee ciidamada dalka Iran Pakistan uu khadka telefoonka soo galiyay iyo sidoo kale boqorka Jordan waa loo dhamaa khadka telefoonka soo galiyay oo group call ayuu ku wacay dabadeedna Netanyahu ayuu gooni u wacay inkastoo la leeyahay arrintu saas ma ahane Netanyahu buu la hadlay markii hore dabadeedna qolyahan ayuu isagoo group hal mar oo la hadlay hore ayaan u sheegnay sababaha kulligood khadka mar loo soo wada geliyay mar raba hadii ku noqdo muuqaalkii kan ka horeeyay daawo halka ay xog badan ku jirta haduu ku sheegay Farid
haddaba Donald Trump markuu khadka taleefanka soo galay uu la hadlay sirtii laga helay oo hadda la baahiyey ayaan rabaa inaan kula wadaago oon horey loo shaacinin aan isleeyahay Rebirth Somali TV waxaa suurtagal ah in aad markaa idinku aadtiin dadkii u horreeyay ogaaday haddii aydan saaxiibadayda kale ee videoyaasha abuuray inaan ka arkinin waayahay Donald Trump markuu khadka wadamada carabta iyo muslimiinta uu soo geliyey hogaamiyahooda habeenkii xalayta ahaa ee sabtida ahaana soo dhaafay uu uga warbixiyey dagaalka Iiraan in lasoo gabagabeynayo waxa uu kale uu raaciyey in ay markaa ka qayb qaataan Ibrahim Accord oo ay ka caada yeeshaan Israa'iil iyo ayagu ay iska caada yeeshaan arrintaas raggii khadka taleefanka ku jiray oo Maxamed bin Salmaan ka mid yahay oo amiirka Qatar uu ka mid yahay imaaraadka uu ka mid yahay Maxamed bin Zayed ayaa khadka ku jiray saan ognahay qaarkood Maxamed bin Zayed marka laga saaro asagoo horreeyay heshiiskan saxiixay intooda badan arrintan waxa ay ku noqotay paragrafka koobaad they were court of God yab iyo mucjiso ayay ku noqotay arrinaysan filanaynin Iiraan iyo dagaalka in lasoo gabagabeeyey ayaa lagu hadlayay waxuu soo dhexgeliyey Ibrahim Accord oo wuxuu Trump rabaa labada arrimoodba in lasoo gabagabeeyo dagaalkuna uu joogsado arrintaana lasoo gabagabeeyo oo dhinac walbaba oo ka yiraahdo shalay waxaan bilaabay markii hore madaxweynaha ahaa waa gabagabeeyey Iiraan iyo wiilalkeeda meel baan ogaga haray asagoo qarinaya balaayiinta Iiraan loo fasaxayo iyo Hormuz inay haysanayso oo markaa uu doonayo in uu markaa burcad isku dhex mariyo asagoo uu ka dhex kalluumaysto paragrafka labaad Sacuudiga inuu Israa'iil uu markaas uu ictiraafo oo uu iska caadi yeeshaan Donald Trump waxay u tahay waxyaalaha waaweyn ee muhiimadda gaarka u leh Maxamed bin Salmaan Maxamed bin Salmaan ayaa waayahan dambe ka cagajiidayay iska caadi yeeshashadan ayaga iyo Israa'iil oo dib ayuu u guranayay xilli qadiyadii Falastiin aan meel la saarinin oo shuruud ugaga dhigay Falastiin oo qadiyadeeda meel la saarinin in aysan waxba suurtagelin arrintaasna Israa'iil si bareero cad ayay u diiday oo ma ogola Israa'iil muxaafid iyo mucaaradba in la yagleelo dowlad Falastiin la yiraahdo oo xor ah oo gobonimo ku noolaata dhulkeeda iyo ciideeda iyo calankeedana u madax bannaan ma ogola waayahay laakiin arrin kale oo muhiim ah soo baxday oo dagaalka Iiraan uu sababay oo reportkan lagu sheegay Axios ay qorayso Axios Donald Trump waa saaxiibo waayahay laakiin mushkiladu waxay tahay ayaa lagu yiri articlekan Axios ay warbixinta Axios ay qortay dagaalka Iiraan waxa uu saameynta u yeeshay waxay noqotay bilcagsi tii la rajeynayay oo macnaheedu waa maxay waa idinka wada xasuusan in Iiraan in ay dagaalka weerarkii ugu badnaa ay ku qaaday dowladda dalka Imaaraadka sababtuna ay tahay sababtuna ay tahay saaxiibnimada dhow ee Imaaraadka uu la leeyahay Israa'iil maadaama Imaaraadka iyo Iiraan isku dhow yihiin gantaalada Iiraan ay Israa'iil u dirtana qaar ka mid ah inta la socono ay Israa'iil ay qabatay qaarna meel cidla ay ku soo dhaceen qaarna ay burbur iyo dhaawac iyo dhimashaba ay gaarsiisteen Imaaraadku waa u dhow yahay biyaha ayay dushooda marinaysaa gantaalada before you know waxay bartilmaamaysanaysaa dalka Imaaraadka in ka badan 2,000 oo jeer ayay weerartay oo Iiraan intay Israa'iil weerartay ka badan ayay weerartay Imaaraadka maadaama uu saaxiib leeyahay Israa'iil wadamada carabtuna waxay ogaadeen arrintaasu Iiraan Israa'iil oo dhinaceeda loo bartaa oo lala saaxiibaa it will cost them they will pay a price waayahay haddaba haddii dagaalku uu waxba yaraatee wax natiija ay ka soo baxeen dantii laga lahaana ay lahayd Iiraan iyo wadamada golofka in la kala fogeeyo hadda waxaa dhacday wadamadii golofka inay dhinaca Iiraan ay u bateen they are close to Iran laakiin Iiraan kuwa ka fog ma ahan oo sidii la rabay natiijadaas uma soo bixin ayaa lagu yiri oo waa anagii idinkaga soo sheekeynay shaxda Sacuudiga Imaaraadka maaha Sacuudiga iyo Turkiga iyo Qatar iyo Pakistan iyo waxa la karinayo oo Erdogan oo miskaxda leeyahay Sacuudiga iyo Iiraan Sacuudiga iyo Mareykankana lagu qanciyay dantoodana ay ka dhex arkaan oo isku milmayaan Iiraan oo halkaa lagu soo darana
ay noqonayso arrin aan taariikhda hore u dhicinin marka wadamadii golofka they getting waa close to Iran weeye dagaalku intuusan bilaabin ka hor oo sidii la rabay halkaa waa lagu khasaaray waa yahay Trump wuxuu isku dayayaa qaybta u dambaysa paragraafka u dambeeya Trump waxa uu doonayaa in uu dagaalka Iran soo gabagabeeyo Ibrahim Accord uu soo gabagabeeyo labadoodaba isku mar oo laakiin Trump waxa uu doonayo iyo fiqul waaqica xisaabta taalamiiska saaran ayaa kaafiya kala dheeray it doesn't add up waa xisaab aan isgelaynin isku darmaynin meesha maanta wax marayaan Trump nin in dhala ayuu ka yahay oo aan la soconin meesha ay wax marayaan jariiradii asaga taageeraysay ayaa maqaalkan ka qortay right now barnaamijkan intaan ugu guda jirnay wax yar ka hor intaanan bilaabanin ayuu soo dhacay warbixintaan markaas Trump arrintan sir ayaa ugu lifaaqnayd inuu Netanyahu yiraahdo Sacuudigii baan wadaa Sacuudiguna waxaa muuqata inuu arrintan ka durkayo dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo weliba arrinta kale ee muhiimadda gaarka leh ee ah Sacuudigu maadaama labada bogcadood oo barakaysan ay ku yaalaan caalamka islaamka oo dhan ayaa daawanaya qadiyadii Falastiin haddii uu Israa'iil uu intiraafana qadiyadii Falastiin waa soo gabagabay Falastiin dambe wax la maqlayaa ma jirto marka Sacuudiga waxaa lagu qanciyay Erdogan iyo saaxiibadiisa ay ku qanciyeen inuusan tilaabadaas uusan qaadanin ammaankiisana dowladda dalka Pakistan ayaa sugaysa oo nuclear state waatii ay heshiiska saxiixdeen video ayaan idinkaga duubnay ay daawadeen 118,000 oo idin kamid ah ku mahadsantiin xogta muuqaalkaas ku jirtay haddaba daawadayaal xaaladdu halkaa ayay caawa maraysaa maanta oo axada ama caawa oo axadana wax la saxiixayaa ma jirto isniinta oo berrita ah iyo wixii ka dambeeya ayaa loo diga roganayaa Iran inta ay ka xaqiijinayso in laga qaaday cunaqabataynta qaybta koowaad iyo tan labaad hantideedii la soo daayay Hormuz inay iyadu ka talinayso laakiin maraakiibta sidii dagaalku maraakiibta ay ku soo celinayso dagaalku intuusan bilaaban ka hor ay ku soo celiso canshuurna aysan ka qaadinin haddii dhaqaalaheedii loo soo celinayo oo ay canshuurtaas aan ilaahdee cunaqabatayntaa la saaray iyo dhaqaalaheedii laga joojiyey oo loo soo daayay Iran isku qaboojinaysaa oo markaa wax lacag la siinaya Iran ma jirto ayadana Hormuz bay furaysaa laakiin mafaatiixda ayada ayaa xaynaysa iyo maamulkiisa oo looga dambeynaya Iran hadday intaa isku hesho arrinta nuclearka awalba dib baa loo dhiganayay dib ayaa loo dhiganayaa su-aashu waxa ay tahay haddaba daawadayaal Trump waxa lagu wada hadlay ma fulin doonaa oo labada falaarood oo barida ogaga taagan ma iska fujin doonaa salka dhulka ma dhigi doonaa mise maye Trump wuu soo rogaal celin doonaa oo markaas Lindsey Graham iyo waxa uu dhageysan doonaa iyo ninka la yiraahdo magaciisa Ted Cruz iyo kuwa markaas Israa'iil saaxiibka la ah oo raba Iran in la jabsho oo la burburiyo miyuu dhageysan doonaa iyo labaga Israa'iil oo xoog fara badan leh miyuu dhageysan doonaa sadanta Mareykanka ayuu hormarin doonaa oo wuxuu noqon doonaa oday nabadoon ah waxaan oran karnaa waqtiga ayaa macalina meesha ay caga dhigan doonto lama qiyaasi karo if anything dagaalku waa soo rogaal celinaya ayuu Cornel Douglas Magarega aad ka dhageysateen Iran waxayba leedahayba arixada xaajoodkan inay burburaan ayay qarka u saaran yihiin Maxamuud Aylahdee Mas'uud Basashkian madaxweynaha dalka Iran waxa uu yiri anagu qaraalaasa ma wadno xaqeena iyo xuquuqdeena ka tanaasuli mayno cidna oo daba fariisan mayno waxaad daawaneyseen Brit Somali TV iyo barnaamijkeena fiidnimo waa kii 40 intuu waagu baryay rabbigay keligii mahad ka gaadho daawadayaasha sharaftii karaamada leh waa idin mahad celinaynaa stay up to date with Brit Somali TV iyo wararka ugu waaweyn caalamka kaalay iska arag nabadgelyo